أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى أسرار. And you think that we are the enemies. kusoo dhawaada barnaamijkan Hidiyada Islaamka. barnaamijkan Hidiyada Islaamka toddobaadkan insha Allah waxaanu kaga warrami doonaa taariikh nololeedka Allah u naxariistay sheekhi weynaaye daacigii islaamiga ahaa waa Sheekh Axmed Xuseen Diidaad. kusoo dhawaada mar kale ee barnaamijka hor idin kala baxo. Sheekh Axmed Diidaad waxa uu ku dhashay degmada Surad ee ku taal gobolka Gujarat ee waqooyi kaga beegan magaalada Mumbai ee waddanka Hindiya. taariikhdu markay ahayd 1 Luulyo 1918. Axmed Diidaad wax barbaarisay korisay hooyadii mana u arkin aabihii ilaa ay da'diisu gaaraysay 9 sano jir. Sheekh Axmed Diidaad aabihii wuxuu ka shaqaysan jiray waddanka Koonfur Afrika maadaama shaqooyinka waddanka Hindiya ay iska yaraayeen waqtigaas, taasi oo kaliftay aakhirka August 1927 inuu Sheekh Axmed Diidaad u safro waddanka Koonfur Afrika si uu la kulmo aabihii. isla sanadkaas ay ahayd markii ugu dambeysay aragga hooyadii maadaama hooyadii dhimatay bil yar kadib safarkiisa. safar dheer oo bila qaatay kadib wuxuu gaadhay waddanka Koonfur Afrika markii horeysayna arkay aabihii Allah u naxariistay halkaas oo aabihii kaga daray waxbarashada dugsiga hoose. Axmed Diidaad wuxuu ahaa arday dadaal badan kaas oo ku kasbaday dadaalkaas in laga dalacsiiyo fasalada uu dhiganayay marar badan. markii uu dhameeyay dugsiga hoose ilaa fasalka 6 nasiib uma helin inuu sii wato waxbarashadiisa, mana awoodi karin inuu iska bixiyo kharashka waxbarashada. sanadku markuu ahaa 1936 Axmed Diidaad wuxuu ka shaqo galay dukaan yar oo lahaa nin muslim ahi isla markaana ku agaalay dugsi lagu tababaro culimada Kiristaanka oo loo yaqaan Adam's Mission ama markaska dacwada ee Aadam. dadka wax ka iibsan jiray dukaankaasi waxa uu badnaa ardayda Kiristaanka ah kuwaas oo tababarka ay soo qaataan ku tijaabin jiray Axmed Diidaad oo weydiin jiray su'aalo fara badan oo shaki gelin kara diintiisa. su'aalahaas ay ka mid ahaayeen Maxamed wuxuu ka soo naqliyay buuggiisa waxa uu jeedaan kitaabka Quraanka ah kutubtii hore ee Kiristaanka iyo Yuhuudda iyo hadallo kale oo fara badan oo markaa dhac ku ah diinta Islaamka. Axmed Diidaad Allah u naxariistay waxba kama aqoon waxaas oo dhan yaabiye fajac ayuu la aamusnaan jiray. intaas kadib maalmaha ka mid ah isagoo raadinaya wax uu akhriyo ayuu helay buug qadiimi ah oo ciwaankiisu yahay Idhaarul Xaq oo macnihiisu tahay muujinta ama daahkafaydida xaqa oo uu qoray Mawlaana Raxmatullah Kiranfi oo ahaa sheekh Hindiya wuxuuna qoray sanadku markuu ahaa 1864. Mawlaana Raxmatullah wuxuu ugu talagalay buuggiisa inuu ku hubeeyo dadka Hindida muslimka ee dalkooda iyo diintoodiiba weerarka lagu yahay, kuwaas oo weerar baan ay ku hayeen wadaadada Kiristaanka ah ee watay gumaysiga Ingiriisku. buuggan wuxuu ahaa Sheekh Axmed Diidaad cadceed soo baxday iyo hub uu helay raggii wadaadada Kiristaanka ah ee jaarka la ahaa dukaanka uu ka shaqeeyo. si kastaba ha ahaatee Sheekh Axmed Diidaad markuu daaracday buuggaas wuxuu bilaabay inuu dood la furo ardayda dhibtay ee hadarada meelka dhaca ka odhan jirtay diintiisa Islaamka. ardaydaas kadib wuxuu u gudbay wadaadadii meesha wax ka dhigaysay iyo kuwii magaaladaba. waqti kooban kadib Axmed Diidaad wuxuu bilaabay inuu sameeyo fasalo lagu dhigto isbarbardhigga diinta Kiristaanka iyo Islaamka, sidoo kalena wuxuu bilaabay inuu jeediyo muxaadarooyin ku saabsan isbarbardhiggaas kuwaas oo markii hore ay soo xaadiri jireen dad aad u tiro yar. sanadku markuu ahaa 1957 ayuu Sheekh Axmed Diidaad aasaasay markaska dacwada ee loo yaqaan ilaa haatan Islamic Propagation Center International ama xarunta faafinta dacwada Islaamka ee caalamiga ah. halkaas aynu ku soo gabagabeynaa qaybtan koowaad ee barnaamijka. insha Allah halkaas aynu ka soo ambaqaadi doonaa qaybta dambe. فتثير الشوق نبحث عن أكثرها صدقا.